بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تسير نحكب اللوضاء آيات لبقل يكونتن يلحاد سورة البقرة كمد آيات نحكو سابسانتهاي عقيدة إيمانك qofka sida looga rabo inay tahay wax uu ku qancay oo yaqiin uu hubo inay noqoto oo aysan noqonin wax cabsi iyo guulguul lagu galiyay. sidaas ayayna qiimo ku leedahay qofka qanaacadiisa inuu ikhtiyaarkiisa wax ku doorto ayaa la rabaa. saasa ilaahay wuxuu leeyahay laa ikraaha isqasbid ma jirto fi diinta la isku qasbo oo xoog diinta la isku geliyo oo ruuxii asoo la cabsiinayo oo seefta lagu haayo islaamka gal in la yiraahdo saas ma jirto. laana hadii sidaas la yiraahdo xaaladaas qofkaas uu ku sugan yahay waayahay ayuu leeyahay islaamka waan galay ayuu leeyahay, laakiin wax saaka ka soo go'ay oo qalbigiisa ka yimid ma aha. bari markii uu fursad helo oo sidaas ka duwan oo meel caadi ah uu tago halkiisii iyo gaalnimadiisa ayuu ku noqonayaa. marka diinteena islaamku waa diin dadka qancisa oo qofka la hadasha oo u aqal celisa oo markuu asoo ku qanco uu soo galo sidaas ayuuna ku sii wadi karaa. wax la isku qasbay marka laba ogolo ahkaamta islaamka dhanna waa sidaas wixii la isku qasbay waxba kama ratibmaan. hadii mesela la isku qasbo islaan in la furo oo qofkii lagu qasbay waan furay uu yiraahdo waan furaydaas waxba ku furmi maayo laana iraadadiisi ma inahayn qasab ayaa looga keenay. marka wax qasaba lama ogolada beec hadii la isku qasbo oo ruuxa la yiraahdo ilaa waxan gado oo uu gato beecaasi ma ansixin laana iraadadiisi iyo ikhtiyaarkiisa muusan ahayn. diinta oo waxaas oo dhan ka qaalisan oo masiirkii qofka adduun iyo aakhirada meeshii uu ku badbaadi lahaa inuu ikhtiyaarkiisa ku doorto oo qanaacadiisa uu ku doorto si hadhow meel kasta oo uu tago oo diintii u sii wado uguna dhaqmo. sidaas waxa la rabaa si qanaaco leh inuu qofka diinta u soo galo ee tahdiid iyo yaani qasab inaan lagu gelin. saas waxa loo leeyahay laa ikraaha isqasbid ma jirto fi diinta la isku qasbo. diinta marka la isku qasbay leeyahay waxay tahay soo galitaanka hore qofka lagu qasbi maayo ilaa soo gal hadaad soo gali weydina waa lagu dilayaa. labadaas loo farad looma taagayo, waa lagu qancinayaa, waa loo sheegayaa, waa loo sharxayaa. hadduu ku qanco waa sidii la rabay saas uu ku soo galayaa. hadduu ku qanci waayana hadii uu ogolaado islaamku inuu maamulkiisa iyo soo hoos galo taxta dawlad islaamiya oo uusan caqabad ku noqonin diinta faafitaankeeda iyo intii laga qaado wax la yiraahdo jizyo oo yaani naftiisa lagu badbaadinayo service-ka ay dawladdu ku qabanaysan oo qaybtiisa ka isticmaalayo ayuu iska joogayo iska noolaanaya. hadii qofka maxaad u soo islaami weeyday hadii kale waa lagu dilay arinku ay tahay jizyada sharciyeynta ilaahay uu sharciyeeyay yaa meesha ka bixi lahayd oo waxay noqon lahayd qofka ama waa inuu islaamka soo galo ama waa inuu qabriga galo meel u dhaxaysa ma jirto. hadda waxa loo ogolyahay islaamka inuu soo galo waa sida fiican oo loogu baaqaayo. hadduu diido jizyo waa inuu iska bixiyo, hadduu diido waa lala dagaalayaa. maraaxishaas ayaa loogu gudbiyaa oo diinta dadka loo gaarsiiyaa. marka qasab oo ilaa wasankan ka gelin ma jirto. waxa laakiin aan la ogolayn hadii ruuxu uu diinta soo galo oo muslim uu noqdo inuu diinta dib uga laabto ama uga baxo lama yeelaayo. kii ka baxana nidaamka dawladda ah oo hawsh loogu talagalay inuu diinta ilaaliyo yaa waxa la qofkaas inuu talaabo ka qaado. wuxuu talaabo uga qaadayana ma aha sida ay gaalada ka dhigayaan oo xurriyadda ay muslimiintu ka soo horjeedaan oo dadku xor ma aha oo dadku way gumaysanayaan. arrinku ma aha. arrinku wuxuu yahay ruuxu intuu islaamka soo galin xurriyadiisu uu haystaa. hadduu soo galana waa si la rabay, hadduu soo gali waayna banaankiisu joogaayo jizya laga qaadaya. laakiin hadduu soo galo ma noqon karo diinta kama bixi karo. waxa loo diidayna waxay tahay lama ogolaan karo arrintaasoo hadhow dadkii soo gali diinta ayuu waswaasinaya. wuxuu leeyahay ana islaamka ku jiray intaasoo sanaan ku jiray markaan baaritaan iyo koorgalad dheer aan sameeyayna waxa ay soo baxday wax lagu qanci karo inuusan ahayn. saas daraadeed ha kullu inuu isku galina diinta. marka waxa loo dilaayo waa ka reebista dadka uu ka reebayo iyo ka fidnaynta iyo horjoogista oo hor istaagay diinta ilaahay alladina kafaru wasaddu an sabilillah ayuu soo galaya. marka cid walbana mabda'eeda in dadka laga hor istaago
ما أي أقوله دولتها عادية إيه دولة لماذا إلى شنايا يا وحير هذا أرنت الدولة ده كصابسن روحي الدولة كلا سرت هذه جالسية خيانة قرن أيو سميهم ولا الدلا يا محايل وحوفها في دولة سرتها أيوب بحية مادام أو دولة كور هاي أو جديه أو كجري أخبارات أو جارك أها جديه ذا أها أيو عدو جدسي أو بنانك أيوب بحية روحي سيدا فيلا هل الدلا أي قوانين تأي قرطان أي كقرطان هذه دولة حنا وحباب أهين أيساء إلى علنا يانا روحي سرتها ذفا في هل الدلا اللي محاضر ما دينتي إلهي كون كان إنه ما من الله تلقى روحي أنتو صاق هذا ندب وقبحها oo yiraahdo diintaani tu fiican maaha oo dadka ka hor istaagay kaas waxa loo dilay ka hor istaaga diinta oo dadka ka hor istaagay asaga shakhsiyadiisa wax ku saabsan maaha saas daraadeed marka diinta asal ahaan ruuxa lagu qasbi maayo maxay hadii lagu qasbo munaafiqnimada ayaa badanaysa oo markii seefta lagu haayana waayahay ayuu leeyahay markii seefta laga leexiyana qofkii hawshiisa ayuu iska wadanaya wax marka noocaas oo kala ilaahay ma aqbalo ilaahay wuxuu rabaa wax qofku uu ku qancay oo iraadadiisa oo xor oo ku doortay oo ilaahay yaani intuu adiladiisa kooniga uu firi oo ku qancay diintiisa saa uu ku soo galay taasana wax anfici doonto hadhow si kasto loo cadaadiyo oo la isugu day in diinta looga saaro diinta kama baxaya kaas ayaa marka qiimo leh kaas muumina laakiin wax dhalanteedo qasab lagu soo geliyay hadii qasabkii laga leexiyana halkii uu ka sii wadi doono gaalnimadkiisa kaas diin ma waxaase ha ku qasbina faraha isaga qaada la ikraa isku qasbid ma jirto fi diin diinta la isku qasbo soo gelitaanka diinta oo la isku qasbaa ilaa soo gal jiraado ma jirto sababtu maxay tahay qad tabayyana wuu cadaaday ar-rushd hanuunku min al-ghayb baadnimadka xaqiisa ayuu ka cadaaday yani hanuunkina waa la cadeeyay baadnimadkina waa la cadeeyay ruuxana dhaxda intii la istaajiyay yaali labadaas wada ayaa jirteen adigu mid dooro ama mid hanuunka dooro oo asbaabta aad ku dooran lahayd iyo aqal celinteeda iyo adilada kooniga iyo wax dhan ay ku cadiin midan kale ee baadnimadkeeda iyo qiimo daradeeda iyo xumadeeda iyana waxba ahayn ayaa lagu kala cadeynaya wahdaynahu najidayn labada wadaba insaanka waan u kala cadeynay asaga marka wuxuu noqonayaa imma shaakiran wa imma kafura inuu mahad celiyo oo mu'min oo noqdo iyo inuu diido marka labadii wada way kala cad yihiin isku qasbid ma jirtee ruux walba wadadii marka asaga uu ku qanco ayuu qaadaya wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur marka arintu way kala cadahay qad tabayyana rushdu hanuunku waa uu cadaaday min al-ghayb baadnimadka xaqiisa ayuu ka cadaaday waaka marka masiirka qofka iyo kala doorashadiisa iyo sida qofku uu noqonayo ee qiimaha leh faman yakfur qofkii ku kufriya بالطاغوت وهو الباء إلهي غير كل عابده وهو الباء إلهي كالصهري قفك كفري ويرادا أنا وحاس أدعابد إنسان أما قرحها أهاته أما طقحها أهاته أما وحو كلو دونها هذا أصنام يا إلهي غير كي وحي العابده أنا مرة بقفك يرادا فمن يكفر قفك كفري بالطاغوت إلهي غير كي وحي العابده طاغوت كاللي يرادا قفك كفري ويؤمن بالله إلهي رمايا فقد استمسك وحو قبصدي قفكاسي بالعروة الوثقى قنتنتي أما حرقي أبكاء أيو قبصدي قفكي طاغوت وكفريا إلهي غيرك وحل عابد قفكي كفريا أو الديدة ويؤمن بالله إلهي رمايا فقد استمسك وحو قبصدي بالعروة قنتنتي الوثقى أبكاء أيو قبصدي حرق أذق أيو هايستا لانفسام قئت أمسونا نقنتين تاسي لها أيضا قنتين قئيسا معها وقنتين أذق وحبل الله المتين وحرق إلهي أتكا قفكي قبصدا آخرنا الجنة أيو كتغايا الدنيا عزئي الشرف أيو كنا ولانا محايلة قلبك إيمانك وكجر ومؤمنك وكجر أيو كعزوبايا قفكاسي قنتين أذق أيو مركا يستا والله سميع الله مغلا أيو أهالي تسكو حيكوها الله عليم أوك روحي مركا مؤمنك أها أيالة المامي سيدا أويان دانك كلا قفك إلهي كفريا oo طاغوت rumeeya meel cidla ayuu taagan yahay macna xarig adag ma haysto meel boocbooc ayuu taagan yahay waxa la tilmaamay marka wixii qiimo leh marka la soo cadeeyay oo yani isku qasbi maayo diinta hanuunkiina wuu cad yahay baadinimadkiina waa la cadeeyay waa la kala saaray markii la yiri ya xagee la doortaa markay noqotay meeshii la dooran lahaa ayaa la tilmaamay oo ah ilaahay in la rumeeyo wixii ilaahay ka soo harayna lagu kufriyo ruuxii sidaas yeela xarig adag ayuu haystaa kaas ayaa qiimo leh oo wax ka soo qaad leh way macnaha dhanka kale ka aan sidaas yeelin hadalkiisu sheegiisa oo ma banaana way macnaha wax uu yahay male xoolaha ayuu ka liitaa kaas marka waqti la iskaga qaadi maayo qiimo male insaanku wuxuu qiimo ku leeyahay markuu Allahi abuuray oo
رمايو منهج كيس أو قاطو إلهي الدين تسوي التزامه ساس أيو عزية شرف كلهم هدو تهديدو أو قرم مرو مع المير أدونك مع لأو تاجنا ليو القاب بين أي مقعية ير وحبا عن قيمة لهين حولا أيو ليه هي مضح أيو يهيو وحن قيمة لهين أو بريء كلمة دونه كسوقات ماله مركب واحد قيمة له كسوقات كله وإلهي أول رمايو حرق إلهي الدين تأول قرصده حرق جاء معها وحرق أذق أدون كان الشرف يعزى يا لقون نولان آخرنا الجنة يا لقون تجايا سيدا سامرك لوكل عديدتك حق يا باطلك وحامرك مضن إلا الراعو الحق أحق أن يتبع حق يا مضن إلا الراعو الله ولي الذين آمنوا مرك لسوء عدي مرك أرنكو إنه ساس نقول أيوه إيمانك قفك الراعي وإنه الشرف يعزوك نولان أيوه كي كلا الدين باطلك الراعنا أصنع وحور باطلك إنه أهرجله labadaasi dhinac oo isku dhacayaan markay isku dhacayaan dadku markay isdagaalaan waxay u baahan yihiin gurmad iyo taageere qofka kale si uu u jabiyo inuu u helo wax uu kaga awood bato marka yaa u kala hiilinaayo qofka mu'minka iyo kaan mu'minka ah way isdagaali doonaan markay isdagaalaan xagay ku kala tiirsan yihiin yeyse isku haleynayaan mu'miniinta la soo bilaabay mu'miniintu waxay isku haleynayaan oo ay ku tiirsan yihiin Allahu ilaahi waliyul ladina kuwii weligooda ayuu ahday gargaarahooda ayuu ahaaday aamanu rumeeyeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo koonkan abuuray wuxuu weli u yahay oo arintiisa uu maamulaya oo uu garab taagan yahay oo uu taageeraya Allahu ilaahay waliyul ladina kuwii gargaarahooda ayuu ahaaday aamanu rumeeyeen yukhrijuhum wuxuu ka saaraya min adh-dhulumati mugdiyada ayuu ka saaraya ila nuur iftiinka ayuu saaraya ilaahay wuxuu rabaa mu'miniintu inay mugdiga ka baxaan mugdiyadu waa jamac way badan yihiin waxa kamid ah mugdiga gaalnimadka jahliga munaafiqnimada caasinimada nabadgelyo xumada faqriga yani wax walba oo qofka dhibaayo waa mugdigaas in laga baxo ayaa raba oo loo baxo iftiinku waa islaamka iyo iimaanka kitaabkan quraankan waxa loo soo dejiyay inuu mu'miniinta ka saaro yani mugdi inuu ka saaro iftiin uu geeyo كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور روحي قرصنا كتاب كان قرآن كان مجد جهلك يقال لماذا يحمان وضعنا يوكب بحايا افتينك ينولو نكسن أيوه بحايا مرك إلهي إيات تولي مؤمنين يخرجهم وكسارا من الظلمات أيوه كسارا يا مجدية أيوه كسارا إلى النور افتينك أيوه صاري والذين كفروا كوا قالوا بينا لماذا أنبالك لأيها مركا qaar mu'miniina oo ilaahi oo garab siinaayo oo u gargaarayo oo u taageerayo oo ilaahi isku haleynaayo dhanka kale waxa ka soo horjeeda walladina kafaru kuwa gaaloobay oo taaquudkii raacay oo ilaahi ku kufriyay walladina kafaru awliyaahum sokeeyahoodu waa at-taaquut wa shaytaan ayaa sokeeyo oo ah shaytaan ayay raaceen shaytaan xisbigiisa ayay noqdeen ilaahi ayay ku kufriyeen marka labada xisbi baa jirta xisbullaahi iyo xisbu shaytaani xisbu shaytaanka yani waxa waligiisa ah oo arintiisa tawalinayo oo uu ku jeel yahay shaytaan marka shaytaan xaqu dadgeynay way macna been ayuu dadka u akhrinaya ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhum ash-shaytaanu illa ghurura wax beena oo lagu kadsoomo dhalanteed ayuu dadka u haaya hadhow markii aakhira la tagana naarta markii la gelay shaytaanka iyo intay raacday intuu u khudbaayay wuxuu leeyahay ani maxaad iga rabtaan ilaahay xaq ayuu idin ballan qaaday xaqi ilaahay waa diideen anna mid been ayaan idin ballan qaaday beentaydi ayaad soo raacdeen fala talumuni walumu anfusakum aniha idagaalin idinku isdagaala marka walladina kafaru kuwa gaaloobay awliyaahum sokeeyahoodu at-taaquut ayuu ahaaday shaytaan ayuu ahaaday sokeeyahoodu yukhrijunahum tawaaqidaasi waxay ka saarayaan gaalada min an-nuur iftiinka oo iimaanka iyo islaamnimada ayay ka bixinayaan ila dhulumati mugdiyo gaalnimo iyo caasinimo iyo faasiqnimo ayayna u saarayaan adduunka markay saas ahaadaan ulaaika kuwaas gaalada ah ee shaytaanka raacay asxaabu naarta asxaabteeda ayay ahaadeen hum ayagu fiiha naarta dhexdeeda ayay khaaliduuna ayay ku waarayaan alam tara ila alladhi haaja ibrahima fi rabbih aayadan iyo aayadaha ka dambeeya qisooyin ayaa ku jira qisooyinkan waxay tilmaamayaan isa soo bixinta dambe aakhira la soo bixin doono oo dadka qaarkii ay beeniyeen oo diidan yihiin arrimo loogu cadeynaayo iyo dadka qaarkii waxay diidan yihiin ilaahiga abuuray dadka jiritaankiisa ay diideen sida kuwan lidad mesela shuuciyada ama hanti wadaaga oo aaminsan waxaan koonkan aan ku noolnahay waa un maada isu imaatay oo saan u samaysantay ma ogiye cid ka dambeysay oo samaysayba ma ay jirto
kuwaas marka si loogu muujiyo oo ilaahay jiritaankiisa iyo qudradiisa loo tusiyo ayaa qiso loo sheegayaan kuwa bacsiga iyo soo bixinta dambe ruux markuu dhinto si loo soo bixin ayana dhahayana ayagana qiso lagu fahamsiina ayaa loo tilmaamaya saas ilaahay wuxuu leeyahay alam tara miyaadan arkin oodan ogaanin miyuna ku soo gaarin qisadiisa alam tara ila alladhi xaaja la dooday ibraahiima nabi ibraahim la murmay fi rabbihi kula dooday mid waxa jira taariikh soo maray oo kibir badan oo namruud la yiraahdo wuxuu noolaa xilligii nabi ibraahim ayuu joogay wuxuu inkirsanaa ilaahay jiritaankiisa asaga ayaa ilaahay isu yaqaanay ninka sidaas ay awoodaas iyo kibirka halkaas ka gaaray nabi ibraahim ayaa la hadlay dood ayaa dhex martay nabi ibraahim wuxuu rabaa inuu u sheego oo uu sugo ilaahay in uu jiro midkaana wuxuu leeyahay ilaahay ma jiro aniga ayaa meesha ilaahay ka ah bini aadam kibray halka ayuu gaaray bal qisadaas ka waran ayaa leeyahay alam tara miyaadan arkin ila alladhi ki xaaja ibraahiima nabi ibraahim la murmay fi rabbihi jiritaankiisa ayuu kula murmay ana ataahu allah ilaahay in uu siiyay almulka mulki inuu siiyay kibirkan waxa ka keenaya ninkani ilaahay ayaa siiyay boqortooyo nin madax ayuu noqday maal badan ayuu helay ciidamo badan ayuu isku hagaajistay awood been ah oo bini aadam intuu awood u yaqaanay ah ayaa la siiyay markaasuu ilaahay isku taagay markaasuu ilaahay ayuu ku murmay wuxuu ilaahay ma jiro ayuu la soo taagan yahay bal kaas ka warnaalay ila alladhi xaaja ibraahim kii nabi ibraahim la murmay fi rabbihi kula murmay waxa uu rabbi ugu la murmaayana waxa ka keenay arrinkaasna ay tahay ana ataahu allahu almulka ilaahay inuu mulki siiyay ninkan mulkiga ilaahay baa iskale qofku doon ayuu siiyaa meesh ilaahay uga mahadcelin lahaa oo dhila hada min fadli rabbi ilaahay fadligiisa arrinkan ku aaday yaa wuxuu leeyahay ilaahay ma bajirab marka mulkiga ayuu ku kibray ana ataahu allahu almulk muxuu sameeyay arimaan soo socda ayuu sameeyay muranku saan ayuu u dhacay nabi ibraahim ayaa hadalka bilaabay id qaala ibraahim xilli uu nabi ibraahim ku yiri rabbigay alladhi ki ayuu ahaaday yuhyi noolayn wa yumiitu dili ilaahay ayaan ku barayaaye ilaahay waa midka dadka nooleeya hadana dila oo ilmuhu markay abuurmayaan oo caloosha ku abuurmayaan oo ilmuhu ay dhalanayaan ilaahiga saa u maamulay ee insaankan soo aayisiyay allah ayaa ilaahay ah insaankan markuu joogo adduunyada muddo joogana insaankan mar walba dhimanayaan u jeedno dhimashadaasna ilaahay ayaa keeno ilaahay baa qadara allah ayaa ilaahay adigu ilaahay ma tiidna muruudow saas ayuu ku yiri id qaala ibraahim rabbigay wa alladhi yuhyi wa yumiit rabbi waxa aniga alladhi yuhyi wa yumiit ka waxana nooleeya waxana dila qaala wuxuu yiri namruud ana anuguba uhyi wa nooleeya wa umiitu wan dila yani dilid soo ma sheegays in ilaahay lagu noqdo ana ku tusay sida aan waxna u dilo waxna u nooleeyo waxa laba nin oo xabsiga ku jiray oo dil lagu xukumay ayuu yiraahdaa la ii keeno labadii nin ayaa loo keenay mid wuxuu yiraahdaa la dilo midkii baa la dilay midkii kale wuxuu yiraahdaa la sii daayo waa la sii daayay wuxuu yiri soo saan loo ma jeedo noolaynta iyo dilista midna waan dilay waa ka qabri baa loo sii wada waa la toogtay midna waan sii daayay oo faraxsan yahay oo cafis ayaa loo fidiyay marka soo midna ma ana noolaynin oo ma sii daynin midna soo ma ana dilin sidaas oo ilaahay kuma ihi ma wuxuu sameeyay nin la dilay iyo mid la sii daayay miya noolayna naftan in la geliyo oo laga soo bixiyo rabaa asoo saayuu marka ilaahnimo u qaatay wuxuu yiri ana uhyi anu wa nooleeya wa umitu wana dila nabi ibraahim mar inuu warka ku sii celceliyo ninka meesha uu dhumay inuu yahay sidaas miya dil ah sidaas miya noolayna laana hadii kale muran ma iska noqonaysa taa uu uga baxayba kumuuna soo celinin xujo kale oo uusan ka jawaabi karin ayuu nabi ibraahim aaday qaal ibraahim nabi ibraahim wuxuu yiri fa inna allaha ilaahi yati bishamsi qorraxda wuxuu kala yimaada oo ka keenaa min al-mashriq meesha ay ka soo baxday bariga la yiraahdo ay qorraxdu ka imaataa subaxdii faati biha adigu ka keen min al-maghribi galbeedka soo ilaahi ma sheeganaysid bari subax waagu markuu bariyaay dadku dhammaanka soo baxayaan dadku waxay yaqaanaan oo subax kasta ay arkaan qorraxda oo ka soo baxaysa dhanka bariga waxa la rabaa bari markii la gaaro bariga intaad ka joojisid xagga galbeedka qorraxdii oo ka soo baxaysa inaad na tusisid hadii bari aad na tusisid galbeedka qorraxdii oo ka soo socota oo qorraxdii wareejisid oo aad bedeshid markaas ayaan ku ictiraafaynaa bal taas yeelay marka ilaahay saas wax yeelaya fa inna allaha ilaahi yati bishamsi qorraxdu wuxuu ka keenaa min al-mashriq qorrax ka soo baxay faati biha adigu ka keen min al-maghribi galbeedka ka keen فبهت الذي كفر كي قالوا وريري لان dadka dhan ba ku wada qosray laana wuxuuna keeni karin ayaa la keenay tii hore waxba jilay oo waxbaan dili iyo waxbaan cafiibo walaha laakiin qorraxda bari ka soo baxaysa intuu boodo qorraxda intuu gacanta ku qabto oo uu wareejiyo inuu ka keeno galbeedka subaxdii wax dhici kara ma
أفكو كلا تاجوا معناها فبويت الذي كفر ووريري كي قالوا نمرودها والله إلهي لا يهدي مهنونيو القوم الظالمين قلنا الظالمين تا إلهي مهنونيو حجدي ولقوا أوغي ساس أيونا كفشري قال والبقى واحد بان انتو اسكسوا آديستو سيداس ضدك اسكاقاتنا إنو كون كان أسوي معمولة أسوي أوليه سا إن لو وريري أرجع الربا أولي لهم ماشي وحبكم هاي سيدي ضدك كلح الظالم أياتها ظالمنا إلهي موافق جلسة سواب كعه أو كالذي مر على قرية أو أما سكينة مكسو جاري أو كالذي كينا ممقشي يعني قصاص هروي صور دماتي قصنا ما حيشيغيسا إيسا صوبحين تسيدو إلهي دادك أو صوبحيو يقدردي سيسيدا أي تاع أو أما سي أيان سوى كلمة مقشي كالذي كي مر صومري على قرية مقالة أيو صومري نكن وحلقو فسرها وعزير نكن ليجري ماشي اللي هذا بيت المقدس أيا وحاب بربوريي nin sida namruud oo kale u kibir badnaa oo buqtul nasr la yiraahdo ayaa baabi'iyay dadkeedii macala guriyeedii ayuu baabi'iyay markay saa u baabi'iyay yaa waxa soo maray magaalada oo burbursan Uzayr oo nin fiican oo saalix ah markaas wuxuu la yaabay meesha burburka ka dhacay markaas wuxuu isweydiiyay talow arintan saa u baabaaday iyo magaalada saa loo burburiyay seebu ilaahay u soo dhisi doona oo u soo nooleyn doona dadka meeshan ku baabaay ee ku jira su'aashaas ayuu isweydiiyay مركز أهلي أو كالذي مر على قرية أو أمس كالذي كي مر صومر على قرية صومر وهي أيضا خاوية دنتي على عروشها عرشان تلا أيضا كوكر دنتي أيضا كوكر دنتي كي كرسان قافكي الدربية دي يوحي لنا أيضا سكبها باي على وهي خاوية على عروشها قال وحور عزير أن سلابو يحيي أصلا لأن هذه الله إلهي بعد موتها markay dhimatay kadib على سبيل التعجب والاستغراب موين إلهي وحنا soo nooleyn kara kama wado tolo wax sa u baaba alla ilaahay qudrad badana meeshaan bus wixdad ay ku baabaayn hadhow dib u soo celin doona wa taajub yani ilaahay qudradiisa uu la taajubsay markaas uu anna sideebo yuhyi hadhihi allah tan ilaahay u soo nooleyn doona bacda mawtiha markay dhimatay kadib asay sidaas si loo tusay u sahlan tahay sida uu ilaahay u soo nooleynaayo faamatahu allah ilaahay baadil Uzayr 100 عام بقول سنة أيو ميدها هذا كاس مركو يري مركب ودنتي ماشي وتاجنا أيو جيفتي مركب أو كودنتي مركب ماشي صحيح جيفي بقول سنة waxa inaga midalan aan wax ku qadarayna ee sanadaha ah in la badan ilaahay agtiisa waxa kama aha ninkaasi wax loo tusiyo hadal ayuu yiri 100 sano meesha la jiifay 100 sano intee ku taala marka adigu tirisid 100 sano waa qarni yani faamaatahu allah ilaahi ayaa dilay ninkii 100 عام 100 sano ayuu meeshii yaalay oo ilaahi uu dilay ثم بعثه إلهي وسوبحي 100 سنة كذب قال إلهي وحكيري كم لبثت إمسان ماشان جيفتي ماشان إمسان كنا جاتي أجوكتي قال وحول لبثت وحان جوغي وحان كنا جاتا يوما مال أو بعض يوم أما مال بركات بقال كي سنة وحيلا نغطي مال أما مال بركات قال إلهي وحكيري بل لبثت وحاد نجاتي 100 عام 100 سنة ماشان جيفتي ما ملك إلهي واسداني بصاء ولا صعب 100 سنة أياد ماشان جيفتي وحان لو تصا إلهي قدرتيسا فانظر فيري إلى طعامك راشين كاجي آدودتي بالفيري إيا وشرابك عبتان كاجي لم يتسنه اسمون بدلين إلهي قدرتيسا تمر أوتيو عصير أقصنا أوتيو راشين أوتي بقال كي سنة ماشي أكتسون بيالين واحد اسبدل وكل عاي أو باباي مجرته إلهي مركب قدرتيسا مركب وحمالك سمينايو ساس أيو يلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء مكفيري يا طعامك وشرابك لم يتسنه اسمه لبدلين وانظر فيري إلى حمارك دميرك على فيري دميرك يسيو الله فلفوبي وميشن يالا أيالا تصين وحالي دميرك نساء بابعصا أيالا صور نولين آياه سيدو أصور نولين أصور نولين دميرك بالفيري وانظر وحالي إلى حمارك دميرك على فيري دميرك أيو فيري يسون قنايم وحاسا الله يالالي مرك وأدينا بقصنا ماشي الوجي فيه راشين كاغانا اسبدل كلوغا إلالي دمير كاغانا اللو دلي أصاو جيف هذا الله صنو لين آية ساو حان أيالي ولنجعلك إنا نكادقنو آية علامات للناس تذكرنا علامات كاغادقنو أو إسا صوبحين تدام سي أفضل ضحي سيدتك تصالحان لغاقات لغا أديك أو يكوو عبرقاتان أي أساس لو يالي ولنجعلك آية للناس وانظر فيري إلى العظام لفها فيري دمير كاغا لفيه بالفيري لفيه وقلف قلفوفا يا لصون ولين ربا وانظر فيري إلى العظام اللفها
كيف ننشزها سيدان أصو كعنينو أما أصو تاغينو لفتي با سو كعيسا ويسو بلارنيسا ويسو وينينيسا إلا وين مركن وي باباداي كيف ننشزها سيدان أصو كعنينو أصو كرسار سارينو ثم نكسوها وحان أولا بيسينا لفتاس وحان كركا كسارينا لحما هيرب dameerkii lafiis intii la kor loo soo kiciyo la soo dhisay lafii yaa korka waxa laga saaray thumma naksuha waxaan ku marashaynayna lahman hilib ayaan korka ka saarayna oo ugu labisayna falamma tabayyana lahu markuu u cadaaday arrinkii oo dameerkii lafiis oo soo kacay oo hilib la saaray oo la soo istaajay oo dameerkii u dhaqaaqay falamma tabayyana lahu qaala wuxuu a'lamu waxaan ogaanaya horayna waan ogaaye anna allaha ilaahi ala kulli shay wa huwa al-qadir ilaahi inuu wax walba karo ayaan ogahay sidaas ayaa marka iimaan marka hore wala hadana oo iimaankiisu ku sii ziyaaday iimaanka iyo diinta marka la soo akhriyo diintaasi waxa laga faa'iideysanaa diinta qofka yaqeen ayuu sii qaadanaa asoo marka hore hubay diintu xaqnimadkeeda ya hadana markii qisaskan loo sheego waadix ayay u sii noqonaysaa marka falamma tabayyana lahu warkii markuu u cadaaday qaala wuxuu a'lamu waxaan ogahay anna allaha ilaahi ala kulli shay wax walba qadir in uu karo درسنا ما أنت سكوجي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.